madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha ismaamulka Gaarisa ee wadanka Kenya mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa xariga ka jaray dugsiga caalamiga ah ee Afdheer. Iskoolkani oo loo dhameystiray guud ahaan adeegyadii uu ardaygu u baahnaa ee sida hooy, cunno, barasho sidoo kalena leh adeegyada dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayay dhiseen hablo qurba joog ah oo ka soo jeeda gobolka Afdheer kuwaasi oo waqtigooda, maalkooda iyo maskaxdoodaba geliyeen ubadkooda ay uga tagaan dhaxal ay u aayaan. isxilqaamay go'aansaday dana fara badan iyo waqti fara badan oo iyagu ay leeyihiin oo haddii ay damcaan naftooda inay wax kaga qabtaan ama ay ganacsi galaan waqtiga ay gelinayaan iyo dhaqdhaqaaqa ay gelinayaan intay iska daayeen go'aansaday inay dib wax ugu soo celiyaan dadkoodii gaar ahaan dadka maaragtay tabarta daran ee agoonta iyo ciyaalka iyo masaakiinta inay u micinaan go'aansaday ee waajib diiniya iyo mid muwaadinimada gutay iyagana waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo jazaakallah waad mahadsantihiin ilaahay maaragtay abeelkiisa ka helaysaan bulshadiinana waad ka helaysaan insha Allah haddii alla yidhaahdo aad iyo aad baan idinku ammaanayaa waxaana jecelahay in qaybaha kale ee la midka idinkoo kale ee fursadda u helay inay naftooda wax u qabsadaan inay dadkooda wax ku soo celiyaan oo maaragtay iyaguna ay ku dayan doonaan ayaan rajaynayaa gabdhahaas mahadnaq iyo garab istaag ayay mudan yihiin aad baad mahadsantihiin dhanka barnaamijka maanta aan isugu nimid dawladdu way ka qayb qaadanaysaa si socodkiisa wixii taageero ee loo baahan yahay xafiiska waxbarashadu qalabaynta iyo ka qayb qaatay haddana waan kula dardaarnay inay sii caawiyaan oo garab istaagaan dadaal kasta oo bulshada ay samaynayso dawladdu way xoojinaysaa way taageeraysaa waa dhaqan cusub oo inoo bilowday dadku inayna sugin in dawlad wax qabato ee capacity-ga ay leeyihiin shacabku inay wax ku qabsadaan adduunkuna waa sidaa bulshooyinku kuma horumaraan dawlad waxay qabato kaliya meel kama jirto adduunka bulsho iyadu aan wax qabsanin ma horumarayso marka waxaa laga yaabaa gobolladeena qaarkood unbay ku cusub tahay arrinta wax qabsugeen anu waxaan maray dhul 300-400 kilomitir oo isla deegaanka ka tirsan oo dawladdu inay ku qabato la yaaban sidaan ula yaabanna shacabka qabsanaya la yaaban baan maray anu ceelashii qodanaya iskuulaadka dhisanaya iyagu isku tashanaya intaasoo sanadood ay dawladdu dhisnaydna meel gaari oo jaamacadaha arday geynaya oo shaqaynaya jira marka dhaqankaasi noo bilowday ah in maaragtay wax la qabsado in lagu sii dadaali doono ayaan rajaynayaa waana garab taaganahay heel iyo hooba gabdhaha iyo macadkan quruxda badan ee maanta inoo bilowday dhanka curriculumka ama manhajka dhanka maaragtay facility-ga dhiman hadda kole ciyaal baa meesha imanaya garoomo iyo meelaha ku ordaan iyo waxay isaga baahan doonaan in la idinka taageero insha Allah haddii la wad garab taaganahay waad la socotaan dugsi kale oo boarding ah inkasta uu jiitamay oo 12 dugsi oo boarding oo la bilaabay oo markii dambe xisaabtankii miisaaniyadda markaa hore aan ku bilaabaynay uu ahaa waa dhammaystiraysaan laakiin duruufihii dalka ka dhashay ay keeneen in ay adkaato haddana aan isnaa malaha 12 waa hal mar bilowgoodu niyad wanaag buu ahaa laakiin malaha qorshe ahaan waa laga fiicnaa hadda waxaan go'aansanay 5 ka mid ah in la hawlgeliyo oo shaqeeyaan si aynu kulli wada xadnibnaan kan hargeyla ku idaahay buu ku jiraa dugsiga boardingka laakiin waxaan isleeyahay in baahi waxbarasho oo ballaaran baa taalo gobolkan xitaa sustainability aad ka hadlayseen buu qayb ka noqon karaa oo ciyaalka halkan wax ku baranaya meel hadhow ay galaan yuu noqon karaa marka in kana dugsi hoose oo kale lagu bilaabo kaana dugsi sare oo boarding ah laga dhigay inay weli u baahan yihiin ayaan dareemaynaa baahiyo kale oo shacabka ay qabaan oo macad caafimaad oo kale ka hadlayeen laakiin hargeyla maadaama ay tahay meel xarun gobol ay tahay hadda ka hor wax badan aan laga qaban xaq bay u leedahay in kaa laftigiisa loo raadiyo health college-ka laftigiisa sidiis iskii in loo raadiyo isbitaal lagu ku yaala meesha ballaaran marka kii hore la dhisay ee lagu bilaabay dugsi ahaan in lagu sii wado lana dedejiyo insha Allah sanadka dambana kuwa hawlgelaya sanadka dambe hal sano kadib kuwa hawlgelaya laga dhigo yaan rajaynaya iyaga laftigooda hablahani qurba joogta ah oo kaashanaya qurba joogta kale ee gobolka iyo cid walba oo wax tari kartay ayaa howlgalka dhismaha dugsiga bilaabay October 2022 tirsiga taariikhda caalamka dugsigani ayaana lagu kharash gareeyay adduun lacageed oo dhan $793,000 oo u dhiganta 99,125,000 oo bir oo Ethiopiana dugsigani oo ay ka faa'iideysan doonaan agoonta ku dhaqan gobolka Afdheer iyo deegaankaba ayaa soo maray marxalado kala duwan waxaana loo
sameeyey deeq-uruurinno ay hormuud ka ahayeen haweenka qurba joogta gobolka oo maanta ku guulaystay hindisahoodii soo bilaabmay 2 sano ka hor. waxaa xusid mudan in isla maanta la dhagax dhigay dabaq G+4 ah oo ay dhisayaan isla qurba joogta gobolka Afdheer oo ay haweenku hormuud u yihiin si kharashka ka soo baxa hotelkan loogu quudiyo agoonta wax ku baran doonta iskoolkani. aad iyo aad runtii waxaan leeyahay hambalyo horta aan dhaho hambalyo balaaran aan u jeediyo gabdhaha walaalaha ee hawshan soo abaabulay iyo inta kaleba mashruucan mashruuc caadi ma aha waa mashruuc lagu farxa waa mashruuc taariikhi ah waa mashruuc runtii mustaqbali ah oo tacliimi ah oo wixii loo baahnaa waxyaabihii loo baahnaa mujtamaca kuwa ugu weyn ayuu maaragtay hor ka yahay. waxa ay farxad kale ah in run ahaantii haddii kolka ilaahay qadaray oo aan imaaday Ethiopia saaxiibkay madaxweyne Mustafa aan ka soo dhacay oo si aan caadi ahayn ii soo dhaweeyey haddana farxaddayda oo run ahaantii aan koobi karinna waxay tahay anigu dibadda baan ka imaaday laakiin ninkan walaalkeen ah run ahaantii si khaas ahaan ayaan mahad ugu celinayaa niyadda wanaagsan ee waddankan ugu hay saakayna meel kale aan ka sheegaya haddana waan ku noqonayaa intii hadda aan bartay hore waan u aqaanay Mustafa laakiin hadda labadan maalin aad isku sii baraan u sii bartay marka run ahaantii si khaas ahaan ayuu niyadda ugu hayaa inuu meel soo gaarsiiyo waa daliil maca dalika waa arkaysa hadda waa ninkaas maanta hawshiisii dhammayd intuu maaragtay ka soo tegey wadda dheer aan shalay soo galnay waa naadir weeyaan nin madaxweyne ah oo niyaddaas u haynaya meel oo maaragtay 6 saacadood oo gaari ku soo jiraya ma aha shay caadi ah marka run ahaantii allaha barakeeyo walaalkeen saaxiibkay madaxweyne Mustafa madaxweyne waad ku mahadsantahay niyadda wanaagsan